xaniyahaas waxaa loogu dhuftay kashaas aan damcay inaan saas inta u qabto oo soo dhaweysto cunugii danqasho u dareemay markuu damqasho dareemaa marka waxaan iri war fanaandan ka siiyay marka xubnaha taranka qatar ay ku jiraan maala laga baxshay taliyaha saldhigga ka warbixisay waana meesha uu asaga ka tarmi lahayo xitaa tarankiisa la dagaalan oo saan loogu talagalay sababtoo ah in muuqaal la duubo saldhigga la geeyo ee la yiraahdo muuqaalkaan ahayna muuqaalku cadeen waa sax inuu cadeen ka reebo qofkan uma qabeena bis inuu cunugkiisa yar looga dacwo karo amba dambi uu ku kalayo Cabdullaahi Mustaf Cusmaan iyo Faadumo Mustaf Cusmaan waa caruur yar 3 jir iyo 6 jir marxaladan heerka da ahaan iyo duruuftooda ah inaysan la nooleen hooyooyinkood waxa ay kaliya mudnaayeen kalgacayl hagid lama gaari karay ugu yaraanba in loo dhaweeyo booska hooyooyinkood inta hadda se jirtay ee maskaxaan u gaartay ayaan ba ahayn mid la dhayalsan karo waxaase hadda muuqda halkan la isaga wareysanayaa jirdil sababay dhaawacyo daran walina jirka Cabdullaahi yare intiisa badan qariyay ilaa xubintiisa taranka gudoomiye waxaan rabnaa marka inaan dul tagno dhaawacyada la gaarsiiyay cunuga waatan oo maanta aan sharaxeen ilaahan kugu dhaashay dood 3 jir ah doodka saas loogu tumay ushaas oo ushay maxkamadda hor taalo ushaan raba maxkamad inaan tuso usha doodkaas ka muuqato gudoomiye waa ushaan marka waa majabto way majabayso sidoo kale waa plastic xitaa san caadi hadii loogu dhufto qofka ma soo baxayso laakiin waxa dareemaysaa in ay tahay saas inay tahay oo ay tahay iskala bixis 30 jirkaas iyo 3 jirkaas farqiga u dhaxay waa dareem kartaa 27 sano ka weyn waa 30 jir daad ugu xoog badan ku jiya waa ninkaas dhisan oo murqaha waaweyn mudan gudoomiye marka sanad ugu dhufto waxa ka dhalanaya dacadiyaas waa marka 3 jirkaas wax ku dhaca harna mudan gudoomiye inaan wali maxkamadda u sii beeqaamin waxaas korkaas bucbucday u jeedid oo hadda inaad u moodid inuu dhinac ka bislaaday waxa ku dhacay waa ushaas ee madoobay madoobaadkan waxay sababtay in lagu shubo dhiig lagu shubo cunuga carruurta oo 3 jirka xaniyahaasna waxaa loogu dhuftay kashaas marka waa tacadiga aan ka hadlayno oo saako dhan aan maxkamadda u fadhinay waa tacadiga noocaana xubnaha taranka qatar ay ku jiraan maala laga baxshay taliyaha saldhigga ka warbixisay waana meesha uu asaga ka tarmi lahayo xitaa tarankiisa la dagaalan oo saan loogu talagalay wuxuu xaq u lahaa inuu la barbaariyo isfaan loo barbaariyo la koriyo u helo xadaana oo aad u wanaagsan doodkiisa waa kana mudan gudoomiye waa muuqaal waa markii isbitaalka la geeyay xoogaa daawo yar loo sameeyay waaye xaniyaha waxa laga bixinaa wasaqdi laga miira isbitaalka jooga sanada labaad waxa la yiraahdaa Sahro Ali Maxamed ee sanadu waa in aabihiya ileen tusay aabihi laga rabay inuu cunuga soo kolkoolina ay aragto laga rabay tusay in cunuga uu tumay iyada markuu ku daysatay waxa dhadkan in la dilo loogu tala galay nacada ka tun dhinaceeda ka tunta marka hooyo wax dhashaxta taas inuu xudisho ma bilaadimadu waa ka baxsantaa qaabka xudisho gudoomiye waa muuqaal kale waa markii isbitaalka la seexshay isbitaalka markii la seexshay way dhiiga ku socdo 3 jir halka uu dhiiga badnaayo ku jiro oo hadii si fiican loo xanaaneeyo uu dhiig badan soo galay maadaama uu kurushmo ku socdo ayaa dhiig lagu shubayaa waa dareemaysaa marka waxa keenay in dhiig lagu shubo waa doodkaas wax ka baxay waa iska dhicaamay cunug maalmo walba saas loo tumay waa kan markaan kooma ayuu ku jiraa waa xaaladaha halista uu galay waay oo booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan saldhigga booliiska ay aad ugu dadaaleen xaaladdan ku jiray maanta alxamdulillah waa joogiyaa waa fiican ma sha Allah laakiin xaaladdan soo maray waa kana dayaca ka muuqdo waa kaas wali waxa waay daqaradii iyo wixii ka muuqdaan waa daawadii loo marshay marka waxaana waxa lagu leeyahay ma gelin iyo ma jirtaba ma gelin daryeelow ka raba cunugaada dhash saan marka bil aadamka baxway ma aha xataa diinta ma qabto dhaqanka ma qabo urfiga Soomaaliyeed xataa waxaan kama suurtooban wax la daawo kara ma muddo gudoomiye aabihii iyaga dhalay dabli booliiska Mustaf Cabdullaahi Cusmaan iyo gabadha u dhaxda aabahood ee eedada ah Sahra Ali Maxamed ayaana ah eedeysanayaal ay ku ogan tahay inay yihiin gacmihii isku badbedelay jirdilka carruurta waana kuwan markooda eedeysanay Mustaf oo ay u joogto inuu ogaal u ahaa ficilada garaacista ee xaaskiisa ilaa xubnaha taranka carruurta gaartay jadalkana ay ku jarjartay cunuga yarka Cabdullaahi la garaacay oo si xun loo garaacay oo jirdilka muuqda يا جراد حاسكي قرابة محد عيسى waxa uu sameeyay hadartan oo muuqdo ma arkin aniga ما قسم جراد والله 3 sano iyo bilooyin
adii 3 sano iyo 5 bilood meelaas hooyadii waa joogtaa intee joogtaa muqdisho ay joogtaa aad ma kala tagteen mana waa kala tagnani gabadhani gabadha hooyadeed mar hore kala tagnaa hooyadeed Sacuudiga jirtaa gabadhii wiilka kala hooyo waa miya kala hooyo marka maxay tahay jirdil la geystay iyo doodan maxay tahay Cabdullaahi jirdil xun loo geystay maalmaha kamid aniga anoo guriga u soo socdaa waxa arkay iyadoo askar guriga taaganta askar markay guriga taagantay ma waxa dhacay waxa yiri waxa u baahanahay islaantii cunuga u baahanahay markii la yiri waa soo waday saldhiga la keenay anoo soo daba kacay marka saldhiga markaan imaaday jirdilka cunuga ayaa saan u galay la yiri aniga marka cunuga korkiisa ma arkin waxa dhacday tariyaha saldhiga waxay tiri yaa saan u galay cunuga ilmaha waa la canaantaa ana abiis markaa iri cunuga yaa saan u galay cunuga aniga markaas si fiican uma sii arkin cunuga waa la canaanin karaa abiis ana daa canaantay ama haddii eedadiis canaanatay laakiin dhibkaas weyn inuu jiro ma maleeyahin markaas sidii marka dambigani iyadaan lagu soo eedeeyay muxuu sameeyaa loo garaaci maxaa loo garaaci jiru sameeyaa wallahi wuxuu garaaci jirto uma tagay 3 jir muxuu sameeynaa macna waxa uu suubinaya hadda uu muuqday ma jirto aniga 3 jir wax loo garaaco meesha ma yaalaan marka weydiisay xaaskaaga maxay ku sheegtay inuu garaaco inuu ma tago inuu ma tagay raashinka inuu ma tagay asbaab kale oo ku garaacday ma sheegin iyo eedada sanad Sahra Cali Maxamed oo nafteeda ku difaacday in kaliya canaan iyo cuntasiin ka ahayd garaacista dhaawacyada aad arki karto ay ka dhasheen isla markaana seegeeda Mustaf uu wax ka geystay ficilada halista ah xaafadu jooga asiga canaanta cunuga aniga cunuga usha waaweyn asaa u geystay oo dhulku qaado ku dhuftay todobadaas birina fasax u ahay guriga ila joogo markii la keenay maxay saldhiga ana cunugayga disho dhaayso madana karsoore aniga 2 bilood ila joogin hada dil qarsooni aan ku dilaayo sabab basqiirkaas waa dilaa horta ilmaha sida lagu keenay ilmaha waxa lagu keenay yaana dilay maxay sameeyeen ilmaha asaa walaashiisa oo hay jirtay dada maalin ciid ay maatay anina arina wax ma ku ogeyn ilmaha oo ka reebtay eedada waxaan dhaanaa maxay ahayd la hadlaayo ka tabakeenay subaxii jawaabta markaas sii rabay iyo ninkeeda soo hadleen go'aanka saddexdooda dhameystay inuu ilmaha haysanayo ilmihii marka cunuga ma dhib badneen gabadhana ma bataaga jirin aniga cunuga maxay ahayd waa ma tegi jiray markii la keenay asoo dabcaana la keenay waa isla wadnay isbitaal ku yaalo meeshaan suuq beerta keen dhiig la'aan waa laga soo sheegay xasaasiyo dhiig infekshanka dhiiggiisina dhibic 6 waa la soo dhaxay daawadii la siiyay daawada markuu dhameystay oo tuma abiis subax oo tuma waa naqay hatana sharuubeen oo markii la keeno hadda la keeno saldhig oo soo qoro tiktoorka maxaa loo tuma sameynaa cunugeer raashinka markuu soo kalo ilmaha oo raashin siinaayo cunuga ma tagayo raashinka tiidaayo adoon soo xanaaq jiro waduro jiro oo qayli jiro laakiin u shilaa waxadan oo tuu geystay wiligiis ma keysan habeenkaas yahay maxaa loo adeegsan jiray in la garaaco cunug وشاس شاموج adiga eedadiisa garaacdu leeyahay ma la soo markii meesha la keenay ana diluuray Soomaa eedan waska aad badan tahay nin aniga safar iga jira ma ahayn nin furan jira ma ahayn nin iga dheer ma ahayn guriga isla joogno tadawadaas birfas oo ahaa ee uma bixin markii askartan oo imaanaysaba markii uu naga bax banaan ku aaday askartu guriga garaacayso imaaday ninkayga ana canaanta maxaa laga rabaa labada carruur isku hooyo miya maya kala hooyo adi carruur ma leeda way joogan ad ma hay hadda laba haysta labo marka meeqa qaybooda carruurta meeqa bax waa saddex marka garaacista adigu ida garaacdu leeyahay ma jirta nin hooyadii dhulkiis lagu aftili kan mudan oo joogi ma jirto aan ma qaraayo biyo lagu geli jir madaxa leeyahay biyo maya biyaha cabsis waay siga keenay inuu biyo ka cabsi jiray Soomaa qodar cunadii kaleeto waa ku qabeena beeshinka ku dhaxgelina saasaydu biyo lagu qodaan ma jiro inuu biyo ka cabsaasi ku ogaateen asiga ka cabsiinay oo soo diidi jiray cunugga markii la keenay ma qoys ka badan waa qoyska biyo ka badan ma lagu soo maya lagu hafina miya maalmo taxana garaacisaha kadib qayladhaanta deriska xaafadda Jeneraal Kaahiye oo arintan ka war helay ayaa gaartay taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir gaar ahaan saldhigga degmada Xamar Jajab
waana kuwan deriskii iyagoo maragyo ah. mudan gudoomiye arrintaasi aniga meesha waxaa ku leeyahay farmasi meesha cunug lagu garaacayay iyo farmasigan waxaa u dhexeeyo jiingada u dhexeyso waa derisaana kulay dadka deriska ayagana waa muddo ma degno waxay degan isbuuc wax ku dhan ay degan yihiin meesha marka waxaa maqlay dhawaaq cunug yaroo aad u qaylinaya maqlay marka waxaa u maleynaya marka hore in yani hooyihiisa canaananayso kadib marka waxba ma ka dhigan hooshii iska sii watay qayladii marka sii dambeys way ka sii dareysay jimcay ahayd adi 4 saac bar camal ahayd kadib marka qaylada marka u dul qaadan waayay jiingada marka waxaa jirta meel yar oo waxaa jirta oo mir in qotoy oo laakiin shabshaqo wax laga fiirin karo ilaa inta wax ka aragtay ay tahay kadib marka meesha fiiriyay waxaa arkay gabadh oo maama ah cunug in yani ay lugaha ka qabatay madax bi u gelinayso tuba ay ku furtay ayna garaacayso ay dhees waliba la quraacan jeerada ay dhees din kadib ani waxa waa ayada marka ugu naxay waa fiirin waayay waa ka soo laabtay marka mid oo sargaal oo saaxiibanahay oo meesha ila degan oo asagana meesha degan la wacay oo iga qaban waayay telefoonka asagana kulay shaqo waxba ugu mashquulsanaa u maleena shaqadii kadib waa wacay oo aska dhaaf meel fariistay wiil kala marka meel laba daaya ugu degan wiilka laba daayada u wacay waxa dhac cunuga maamada hadaa ilaa saan u garaacay fiiribal cunuga asagana meesha ka fiiriyay sidii wax u arkay oo ani marka waa edis waa misal lahayn baan gadaal la ka ogaaday barnaamijka kadib marka raggi oo booliiska ahaa sargaalka Axmed Qaasan Allah awar galiyay shaqo ku maqnaa maalinkaas jimcay ahayd habeen sabti ma soo hooyan aniga waa iska baxay subax sabti wuxuu imaaday 6 saac meelaas amal oo iska imaaday xaafadaha barnaamijka markii sida uu sheegay farmasi aan joog markii sida uu sheegay waxa ku dhaynay meeshan kiisa ka dhacay shalay waa ku soo wacay iga qawan weysay kiiskaasna wuxuu ahaa maama cunug si xun u garaacay cunugan waa cunug saqiir ah aadeen u garaacay waana ka jirrocooda kadib marka isaga waayo dhahay shiwa iska dhahay habeenkii sabtiga ay hadana habeenkii axad soo galeysay sabti bixis ilaa maalin sabti uu sheegay mugti habeenkii axad ay soo galeysay hadana waxa arkay cunug hadana qaylihiisa maqlay marka maqlaa hadda ayaga marka meesha ay joogeen meesha ay degan yihiin waxa ku dhahay Axmedow kiiska daraad ku soo wacay hadana cunug sidoo kale uu qaylinaya balkaale waa Axmed marka meesha uu barnaamij ka arkay asagana oo ku duubay saliigu ku soo gudbiyay intaas aanay ka warqabaa qofka duubaya Axmed waa Axmed muxuu ahaa Axmed Qaasim waa sargaal waa isagan oo aniga u sheegay arinta xaafadda markaan mid qolkiga iska galay xoogaa markaan uu iska nastay waxaa maqlay cunug yar qaylidiis oo aad u qayliha oo zaid loogu garaaca marka xoogaa waxaan isiri waa hooyo cunugeeda canaanane waa iska dhaaf in yaraan xoogaa sii joogay waa joogi waay waxaan go'aansaday bal horta inaan ogaado waxa meesha ka socdo cunugan yarka wax dilaa iyo sababta bal inaan wax baaro wax ogaado waa soo baxay annaga guriga aan degannahay iyo guriga reerkan ay degan yihiin hal gabara isku leh waxa u dhaxeeyo hal derbiga u dhaxeeyo marka wuxuu leeyahay meel yar oo xoogaa intii ishu wax ka aragta ah meeshii yartaydan fiiriyay waxaan arkay cunugan yarka oo meel safiito ku fadhiya waqaawaya wax dhar oo xiraya ma jirto gabadhuna waa ka soo horjeeda ayaduna gambari ku fadhida waxay haysataa marka jeedal cunuga aanu cabooya markaas aana la siiyoya jeedalkii waxay u garaacay inta karaankeeda awoodeed intay ta waa dhawaaqa jeedalku waa maqlay cunuga caanihii markuu cabo waa soo mataga waa istaagi hadana fadhigiisa ugu dileysay ku daalay waa istaagi ku garaacay hadana cunuga caanihii waa mataga oo aamusa marka si u dilay cunuga xoogaa waa shanqartii u dhigaa markuu shanqarta dhigo kadib waxay sameeyay biyo meesha agteeda u yaalo ay gacanta ku soo qaadahay waxay ka marayay dhabarka cunuga biyo jeedalkii meesha ka sii waday cunugu markaas waa qaylaha hadana meeshii uu ka sii laba kacleeha cunuga matagi wixii oo dhan oo isku daadshay caanihii wixii oo dhan korkiisa ku yaalo meesha ay ku tumeeho safiitadu taalo marka waxa ku ag yaalo tubo biyo koobay qaaday tubada biyihii ka soo shubay cunugii xoogaa yaray gacanta waxaan uga dhaxdhahay biyaha wixii ka dambeeyay waxay sameeyeen afkii u galiye koobka ilaa macalsanka biyaha saan u gadiye qorta saan u leexiyay cunugu marka biyo ku hanqaha ilaa uu ku hinqado qiiq oo kayda ani marka intaas arkay waa si fiiri waayay waxaan go'aansaday inaan wax uun cadeyna ka helo si aan laamaha ammaanka aan ula wadaago muuqaal toos aan ka duubi kara ma haysane waxaan duubay cunuga ooyintiisii iyo ushi dhawaqeedii iyo ayada hadalkeedii intii aan duubay
sidaasaana saldhiga kula wadaagay mudane guddoomiye intaasaan ku ogahay adiga inta ka tirsantaa aniga waxaan ka tirsanaa akademi generaalka iyo macallimiinta akademiyadan ka mid ah ka mid marka adiga macluumada ma gudbisi aniga waa gudbiyaa saldhigan la wadaag muuqaalkii codkii aan duubay oo dhawaqa cunuga iyo ushi iyo ayada dhawaq hadalkeedii iyo ay ku hadaaqaysaan duubay waxaan la wadaagay saldhiga jawaabtii booliiska ay ka baxsheen dhacdadan ayay garsoorku ugu warbixisay gaashaanla dhexe raxma salaad taliyaha saldhiga degmada xamar jajab 15 bishii 6aad maalin isniin ah 7 saac 37 daqiiqo iyadoo tahay yaa waxaa la ii soo diray kilib yar oo cunug yar oo ooynaayo la garaacayo qof dumarana ka hadlayso xoogaa cunugu markuu ooyana wuu aamusaa oo qof cadaadis ku jira camal dareemayo aad ay xanuun igu noqotay markiiba waa soo baxay taliye xigeenka iyo 2 askari oo mid gabarta ayaan markiiba ku howlgeliyay waxaana la wadaagnay rag hadda meeshaan joogo marka horeba warbixinta na soo siiyay yaa guriga nagu hagay guriga markii la tagay waxaa loogu tagay eedeysana Sahra iyo 2 gabdhood oo yar yar ah iyo cunuga yarka ah Cabdullaahi iyo gabar weyn waxaa la soo kaxeeyay cunugii yaraa iyo Sahra banaanka markay soo baxeen waxaa meesha ay ku soo arkeen eedeysana Mustafa dhammaan saldhigaa la wada keenay barxadda saldhigaan ku sugayay meeshaan oo fadhiya isla markii la soo galay inta cunuga la soo dejiyo cunuga marka dhulka la keeno uu soo orday meel darbiyaan fadhiya darjiina fadhiya jilbaha way qabsaday cunugii yaraa kadib Mustafa wuxuu yiri cunugayga anaa dhalay maxaa dhacayaan dhahay marka anaga jareexada jirka hoose ku jirta uma jeedno sababta fanaanada watay laakiin wajiga iyo dhuunta iyo meelaha banaana waxaa ka muuqday dhaawacyo kuwa reestay iyo kuwa markaas cusbaaba anoo intaas kaliya ka hadlaaya Mustafa waxaan weydiiyay maxaa dhacay oo cunuga saan loogu jirdilay Mustafa wuxuu yiri cunugayga anaa dhalay anaana dishay waadan bila aadan ahaynaan si cunugaaga u dilay gabadha meel ii dhow oo darbi ahaan fariisiyay Sahra markaan weydiiyay ayadan waxay tiri anaa dhalay ani marka labadii cunugii marka anaa dhalay dhahan uu ii soo orday oo jilbuhu i haystay biyo yar oo wasaxa agtay yaal cunuga ku haaday cunugii biyihii markuu cabay aan damca inaan saas inta u qabto oo soo dhaweysto cunugii danqasho u dareemay markuu damqasho dareemaa marka waxaan iri war fanaandan ka siibay marka fanaanadii markaan ka siibay mise wax la fiirin kara ma balahaba cunuga korkiisa dhaawacyo wada dhiig ah oo aan caadi ahayn kulba xiraaliyaha soo bandhigi dooneen aad u xanuun badan waxna taabtay noqdeen waxa la socday wiilashii markii hore warbixinta la soo siiyay wiilashii waxay 2 wiil kamid ah dhaheen maysan dhalin Sahra cunuga waa beentay cunugiyan gabar baarahan u dhibay waa istaagay Sahra gadaal la maray Sahra waxay igu adkaysatay cunuga inay hooyadiis tahay abaar kadib anaga marka cunuga qandha aad u daranahaysay ba taagnaan karin wajiga uu ka bararsanaa cunahaas uu ka bararsanaa xaniyahana malaxa ku jirto way bararsanaayeen way muuqataba isla markii cunuga sawiraan ka qaaday waxaan gurmad caafimaad u fidinay cunugii labada eedeysanaan waa reestayna galabtii ayaa Sahra ii yeertay tiri inaan kula hadlaan rabaa si aan runta kugu sheego taqriiban 1 saac kadib Sahra markaan la fariistay waxay ii sheegtay cunuga inaysan ayada dhalin laakiin 40 casha soo dhalan loo soo tuuray ee ayada korsatay ay eedo u tahay waxaan weydiiyay Sahra ilmo kale inay jiraan markaan cunuga arkay waxaan ka fikiray guriga waxa jiraan inaan ka waraadiyo 2 gabdhood ay ii sheegtay oo gabadhii askartii meesha tagan ay ii sheegeen 2 gabdhood ayaan guriga raadiyay waa ka soo kaxayna waa keenay gabar kamida naafay ahayd maskaxiyana waxa xanuunsan ayadana naafa ah iyo gabadha yarta ah Sahra mar labaad waxay ii sheegtay gabadha yarta ah ee Mustafa dhalay in ayada dhashay nin kale oo askari booliis oo Cabdullaahi la yiraahdo xamar weyne ka shaqeeyay uu dhashay waxaan ka fikiray labadan gabdhood in hadda aan waalidiintii iyo aabayaashooda ku raadiyo gabadha roona naafadana waxay ii sheegtay nin dhintay qarax bakaara ku dhintay inuu ka dhalay waxaan markiiba aan ku bilownay wiilka askariga booliiska ay noo sheegtay xamar weyne ka tirsanaa inaan raadino telefoon lambar ay na siisay waxayna noo sheegtay lambarka inay qof dumar qaban doonto qofkaas dumarka ana Cabdullaahi oo gabadha yarta aabaheeda uu naga qaban doono
sidii markaan sameynay qofay taqaanay oo ahaa dabcan waana laga qabtay teleefonkii si fiican waa naloola hadli waay way taqaanaa ani iigu dhiibay tir waa la hadlaa baarisdeed kadib cunuga yarka Cabdullaahi hooyadiisa waa qofka inala hadashiinayso oo ka dhigaysa gabadha hooyadeed shaki kale ay sii galay labadii gabdhoodna anaa ka cishtay oo saldhigaan ku celiyay kadib baarisdeed cunugta yarta ah waxaa noo soo cadaatay in haddana Mustafa uu dhalay oo gabar kale laga dhalay waxaan dadaal dheer ku bixinay cunuga yarka hooyadiisa inaan helno qorax gaabadkii alla ii keenay gabadha cunuga dhashay iyo niman la socday oo nin kamid ah adeerkeed ahaa gabadhii kale oo hooyada ahayd ayaa waxay ii sheegtay nin guursaday inuu ku qasbay inuu cunuga ayadan iska fogeyso marka meeshii gudoomiye waxa iga soo baxday mas'uuliyad darro dhameystiran dii hooyadiina ay leedahay nin guursaday dartiisan cunuga isaga fogeeyay ka warqabin muddada cunuga uu ka maqnaa cunugii waa la wareegay isbitaalaan geeyay 8 maalmood oo isbitaal ku jiray HB-giisa 4 dhibic barow noqday dhiiga lagu shubay xaniintii waxa laga sameeyay malaxa ku jirtay waa laga miiray mas'uuliyadaasna ilaa hadda anaga hayno cunugii wali ana gacanta ku hayo waxaana u socda daryeelkii caafimaad haddana wuxuu nala joogaa fadhi uu nagu la sugan yahay maxkamadda uu joogaa cunug waa soo iyo macal gabadhii yareed kadib gabadhii yareed ayaa haddana waxaan sameynay baaris dhinac kala kasta inaan u sameyno ilaa isbitaal xataa waa u dirnay gabadha waxaa ka muuqda iyadana jirdil fara badan oo garbaha iyo qoorta iyo dusha iyo cajarada dhan ula fara badan ka muuqda sanka meeshaas dhaawaca kaga yaalo gacmaha sidoo kale garaacisa kaga yaalo marka laga reebo gabadha yarta ay dhashay labada cunug aaday oo macnaha jirdilnaayeen wiilkii iyo gabadhaba subaxdii waaga markuu bari waxaa noo timid eedadii ilmaha awal haysatay gabadha yarta eedadii aan ku wareejinay oo ilaa hadda ay haysay laakiin wiilkii ilaa hadda anagu gacanteena ku jira welina waxa uu ku jira xaaladii caafimaad inkastoo kooma u galay xaalada adag oo soo maray laakiin hadda alxamdulillah soo socdaan maxkamadda ku haynaa gudoomiye warbixinta aan ka hayo kiiskaas waa intaas gudoomiye marka aa wareysatay labada qof waxay tahay sababaha keenay in la garaaco cunug ilmaha yar maxaana ku idin soo baxay booliis ahaan idinka horta garsoore cunuga waxaa dilka ugu badan u geysatay Sahro markaan baaris dhameystiran sameynay dariskii iyo dadkii marka hore xogta loo soo gudbiyay ee arkayna aan wareysanay waxa kaliya cudurdaar looga dhigan inuu matagaas wax dhaafsan oo la sheegay ma jiraan kaliya cunuga inuu mataga sababta keentay way og yihiin oo dhakhtar ay geeyeen xanuuna laga soo sheegay uu xanuunsanaa bahal waa laga sheegay ilmo bahal ku kacsan way matagayaan malaria waa laga sheegay infectionka dhiigga waa laga sheegay xasaasiye inay hayso waa laga sheegay intaas oo cudur ah daryeel meeshuu ku heli lahaa waxay noqotay in furka sharbada la siinayo hadduu mataga la garaaco wax aan ahayn in uu matagay cunug 3 jir ah sabab hadda garaac intaas leeg uu ku mutaysan karana ma aqaano wax aan ahayn inuu matagana way ka dhigan waayeen cudurdaar Mustafa iyo Sahro waxyaabaha kale ee dadkii markaatida ka ahaa noo soo sheegay haddana maxkamadda ka hor sheegi kara jiraana waxay tahay habeenka ugu dambeeyay ee biyaha beeshinka ay ku hafinayso lugaha inta qabatay madaxa inta u geliso ee dushana waxay uga garaacaysay shahmuuka Mustafa inuu soo baxo soo dul istaagay wuxuu weydiiyay waxa ku dhacay waxay u sheegtay inuu matagay ay caana ku qasbayso meeshiisa uu iskaga noqday waana habeenimo waxaa faahfaahintaasna bixin doona markaatiyay warbixintaasna siiyay baaris dheer kadib anaga waxaa noo soo baxday cunugan in arxan la'aan meesha ku haysatay wax hadda uu ku mutaysan kara dil intaas la geysan jiray marka fiirisa labada qoyska oo Sahra iyo Mustafa ma waxa garaacista inta leeg marka la sameeyay ma balwado ka baarteen ma jira oo isticmaalayeen wax balwad ah Mustafa balwad uu leeyahay laakiin Sahro ma baarin dhakhtarna ma geynin laakiin Mustafa balwad mu'taraf uu leeyahay kaniini uu cabaajadna uu cunaa laakiin Sahro markaan wareysanay wax balwada inay leedahay nooma sheegin anagana ma geynin dhakhtar oo kama aanan baarin inay balwad jidkeeda ku jirtay kala carruurtan goormay u soo wareegtay u soo wareegeen Mustafa marka hore ma hijirtay carruur kale ma dhashay Sahra Mustafa maya carruur ma dhalin waxa carruur ma dhalin
caruurtan waxay ku soo wareegeen sida eedada noo sheegtay Mustaf inuu yiri ilmaha ay la ciideystaan ay keen ciidiisa oo fur markii ay keentay kadibna uu Mustaf u diiday gabadha eedada ah iyadoo ooynaysan oo yiri ilmahayga anaa haysanaya iga bax guriga sidaas ay uga tagtay ilmahayga oo Mustaf kula wareegay markii la wadaagtay familkeena waxay dhaheen anaga isaga imaanayna safar ay ku maqnaaneen adeerkay ayaa waxay tiri aan la wadaagay safar uu ku maqnaan markaan imaanaan arinkaas galeynaa way dhahday kadibna aan ilmihiisa marka hore gabadha yarta ana iyadoo yaraan hooyadeed ka tahriibtay anaa soo korsaday cunugana marka la keenay anaa la wareego korsaday maalintaas ciidana u geeyay kadibna asaa ii diido yiri iga bax gurigayga ilmahayga anaa korsanay baare booliiska ka tirsan ayaa garsoorka maxkamadda u sharaxay natiijada baarista ka soo baxday waxa lagu garaaci jiray ulgeetalaal caleentiisa kadib waxa ay sameeyeen in dhahan waxaanayto ushaan macquul maahan dhaawacay fiican ma gaarsiinayso waa in jeedo loo doono marka aabihii oo Mustaf eewa jeedo loo doonay uu soo gaday uu keenay wuxuu yiri maanta kadib wiilka cunugan waxa lagu garaaci doonaa jeedalkan jeedalkii waa waxyaabaha hadda dhabarkiisa iyo ka muuqda oo ku yaalo hooyada dhashay dhibana Cabdullaahi Yare iyo eedada la dhalatay aabaha ayaa iyana fadhigan gudoonka maxkamadda ku wareystay marka maalmaha kamid oo isoo wacay iyadoo wadaca la soomaya wuxuu dhaabay waxa rabaa ilmaha ina ii keentid oo arko macna waqti isla qaadano waxaan walaalo saacada koorka wala ka soo imaanaa gaar raaco ii soo tuuray waxa deganahay dharkeen le xoosh kabanka cal ugaas meesha mooto ka soo raacay waa imid marka imid walaalkay meel irida aha joodar u yiilay marka joodar u yiilay gabadhiya joogtay eedo imaata ahay inta soo baxday eedo farxay war hortay ma dhihin wax gooni aadna idin naga dhixina ma lahayn walaalkay cabaar la sheekaystay meesha ku qaxweysanay goorkaaban eedo xana walaalo waa baxa jaama jidka lagu galaaye wuxuu dhaabaayo muxum waxa raahooda ilmahayga inaa heesto waxaan walaalo ilmahan dhibaato kama muuqato eedo soo korisa ahay 6 sano ahay ilmaha marka maadaama waxa dhaabaayo waxaan heesto ilmahayga inaa heesto waxaan ahays wiilka 3 jir waaye gabadhan waxa sanadka 7 jir u ah gabadha hal sano jirto markii dhiikana igaarkana hal sano iyo bilo yaro jira waa halkii san iska dheh markaas waxaan walaalo mi aha ilmahan hooyadood kuma naqanin ma fahmay markaas xad ilmaha waxaan eedada ugu ramala ilmaha heesto ilmahayga walaalo ii dhaaf xoogaa meesha isku buuqnay waxaan xataa xoogaa cunuga caana iyo xafaayad xatar hadaadan awoodin walaalo kaama rabaan markaas wuxuu ma ilmahayga ina heesta soo koonsaday waxa ninkan waa ka taga ayada u tagay qasaalad xumo meesha taalo naaga la joogeen qasaalad meesha taalo asa u garaacay waxaan horta sahro yaa iri dibkan waa waxa adiga ka dambeeso aniga uqdadii ka shaa waxa inta soo baxdo horta ima salaamin maadaama waxaan dhahay ninkan ilma aadan dhalin ina xabad ku dhawaadhabato aniga taas qalad ila tahay haddana eedood aabahood la dhalatay heesato markaas ayada xoogaa waa qaqeelis wixii tiri aniga xay gartaa waxaan ilma aadan dhalin ina heeso ma qul fiican tahay aan dhahay si kasta hadaad u fiican tahay aniga eedo xun naga tahay aan dhahay waa ka soo laabtay waa u mid waxaan walaalo Mustafa ma ilma ii dhaaftid markaas wuxuu dhahay walaalo mi aha ilmahan wixii tiroori laba cunuga heesta ilma ana isku heenaayo waa ku fiirina lacal hada u bag waayane abaayo waa ku keenaa waxba ha ii keenina dha barka waxaan qadilma hada iga reebay xabada ii keenina dha ilmeyga ina isa jirto ana ilmeyga sin irda ma ka baxay meesha ku buuqnay waa soo naqan waxaan dhahay sahroy walaalay ma ilmaha adaa heehoos xabad ku dhawaadhata ilmahan heeymay dhahan dha ma dhahayo tir ninka waxa ay keen waa heeha waa maasadina dha meesha ka soo carray marka albaabka soo dhafay wixii tir eed farxiyo tir ana bir ku keenay ma ii keenay sidaan dha waxa hadda ay si weysana irdi iga baxa u arkaan dha warkaas sida ugu soo tagaaniga kadib maxaa maqashay arintaas goor maqashay ka bacdi waxa la wadaaga adeer iyo eedo markaas wuxuu dhaay adeer xoogaa safar ceeldheer oo ku maqnaa safar oo jiray wuxuu dhaay gabadheedii ana imaanayo dhahay hadoo ilaahay yiraahdo soonfur ahayd adiga sidaal amba arrafo xusay xaqto dhigi jira arrafo ina soo baxo aad ku day ana taga ilmin ana ka soo kaxeenaa adiga shibiida meesha ii joog
ayadoo sidaas shibis ka dhahay wiil ila dhashay ay soo waco kaaraan degan ka bacdi marka oo dhibkan dhacaaya markaas wuxuu dhahay farxiyo mi aha waa la ii soo wacay wallahi wuxuu dhahay run ibaana ma aqaan oo saasaa jirto macnaha ilmaha dhib gaaro saldhig jooga la ii dhaho dhahay waa soo baxay meesha ka soo cararay hadda ka soo cararay guriga ee deganaa jirana imid lama gabdhood oo diriska ay soo raaceen oo wiilkii qabo mid oo adeer mid kale walaalkiis qabo guriga daamid waxa la dhahay guriga cidda way ka guureenoo guriga caawa cida u degaan camal ay tirnaag ana aqoonin oo ma deganeed guriga ka guureen waa raadi warka ka quustay anaag waxaan dhahay dib oo meeshan iskool bulisa aga ka dhacay cunuga dal walaal ay sheeg walaal ma aqaan dhinacaas ka raasaytir oo xaafadaas loo sii carraaday meesha ka soo carray ilaa amarkiis wiil meel fadhiya weydiiyay oo meel oo maqaaxishaah ah markaas wuxuu dhahay waxa waaye oo dhahay gurigan oo farmashiyaha ku dhagan oo dhan guri maanta oo saqiirka lagu dilay ee naagta ku dishay waa maasanta dhahay meesha taa galay gabar yar iga furtay oo ayada dhashay laba naagna oo diriska kale ilmee wehlina meesha rokeen ma aqaan aniga marka tagay gabadhii hadalkayga markay maqashay Faadumada weyn Faadumo Mustafa guriga ka soo carartay iyadoo ooyaysa way ugu soo haaday waxaan baaray markaas waxaan dhahay cidda maanta waa la wado ishaga gabadhii cunug dishay oo saldhiga jiraan waa soo baxay wiil ila dhashay ayagana ii yimid meesha oo banaanka noo joogo gabadhii maadaama ay heshay waday dheen gurigee gabadhii gurigeenay talisa adeer soo wacday markaas la gabadha waa la baaraa keen gabadha waxaa imaanay saldhiga xamar jajab gabadhii talisada dhibka gabadhii dharka ka siibtay dhibka ku yaalay aragtay marka waxa la waxaa geesay istaal Madiino adeer warqad loo dhiibay gabadha sida lagu baaray maxaa ku yaal gabadha dirjil xoog la ku yaal inta waa qaniisho ayada joogta wareysan kartaa inta waa qaniisho dawada waa qaniisho cajirada ilaa inta ka hooseeya waa shaamuug adiga marka had yahay gabadhi hadda waa ila joogta waa socota waatana yaa haay mas'uuliyadeedii aniga haay adaa haay ka dalbana waxa ka dalbana ilmaheegi saashal u haay ina ilmaheegi maanta u haysto oo wala ugu imaaninba maxaa tahay wiilkaaga muddo goorma ugu dambeysay wiilkayga waxay u dambeysay shabcaanka bishlaashantiisa u dambeysay didiisa hayse maalmaha iidoo ii keen yiray way u geysay cunug markii eedada soo wacday waxay dhahday cunug ilmaha waa laga reebtay dhahday anna xariir ma laha jir ninkan waxa dhahay maadaama ilmihiis oo watay adiga ka xoogay iska dhaafaa dhahay eedada sidii ahalkii u sheegtay ahalkii waxay dhaheen cunugiisa watay iska dhaaf أنا ساس ماشى أوهري معلومة ما كان مقلع عنق قال الدلاء مقلع أذكر سو وعي وحور هنمتا عنق قال الدلاء صلقنا أو ماشي جوان أنا أذكر سو رعنا مركا أذكر لو ورثت أذكر ولا حري وحلو حري عنق محان دمين يا أول يبي وحصل اسكو قبصة أذكر ولا حري ده المغرب عمل الدي المغرب دي عمل marka intaas soo laabanay cunugni ma arkin asoo soo laatay waxna ma liitusan cunugni ma arkin adiga goorme kala tagtay cunuga goorme u dhibtay eedada aabiis marka kala tageen sanadii ayo aabiis marka kala tageen wuxuu jiray 4 bilood u jiray marka kala tagna wuxuu yiri aabiis aniga askari aan ahay markasta magal kari cunug walaalkay mas'uulka ah u dhahay walaalkiisu caanan uu soo dhiibi jiray anna guri adeerkay ku noolaay markoo ii gaar wiilkay 14 bilood adiga oo saantal ku kufaayo wiil isfahane waxa dhahay wiil iyo ana wiil yirisa wata waxa dhahay ma igu rabtaa amal markaas wuxuu wiilkaaga anigu wuxuu yiri habartiisa rabaa asna nicmaayo adiga wiilkaaga ana meel ni degsaayo wiilkayga sanadaas oo heesto waa guursaday ahalkayga soo doontay adiga markaa heesto wiilkayga markaa la qabo 2 bilood amal waxa soo wacay wiilkayga adeerkiisa isoo wacay wuxuu rahan mataha wiilkayga abis isoo wacay wuxuu yiri wiilkayga rabaa aniga waxa dhahay ninkaas wiil masiinay askari way meel u galayna malaha ana wiilkay haysanay ninkeena uu ongol yahay dhahay anu cunugay u haysto waa baxay adeerkii ehelkii u wacay adeerashay isoo waceen waa tagay waxay dhahan wiilkaas la isku haystaa ana waxa wiilkayga ma dhiibayaa dhahay waa ku dhimo kara man dhiibayaa ويري هاري هورتيس وباهي هاي ناس ونوجا هاري أنا وجرنا عندكم عنك قبل واحد كلمة ما قبيه وما تفير سنايو عنقي هلي دايو ما يعلى هو اللي ديد أهل كيا يسكو إمادين أهل كده اللي يسكو إمادو حال ده حال الجبرتان سكري قبتها عنقي ضعفة أهل كيس ويركي أهل كيس بعيد هن أنا كعنقي هوا ضعفنا
qof oo wiilkan dii boqol waay hadoo dhinto qof oo raacana rabnaa adeeraasha way xanaaqeen waxay dhaheen saas dii tahay baraka marshak ay taagan tahay wiilkooda waa ku duceeyna wiilkooda farta ka saar ana ooynaay oo raal ka aheenin daa ku xanuunsaday cunugayga maantaas liima siinin adiga isbuuc ka bacdi aliisi waxa ay imaaday wiilkay adeerkiis wuxuu yiraheen ma taha balantii la jooga cunug keen ana way ilaahaweysay waxa dhahay iska raac meesha la geeyay arag hooya ahay waa wade waxa u geeyay didiis hadda heysatay sanadii baron jir markaas oo cunug geenayo haddana sanadii baro iga maqan yahay saas dida oo soo booq jiray oo soo fiirs jiray waxna iga ma halaynin waxa uu diiq jiray gaarkayga oo soo fiir jiray ina wad qabay marka uu dambeeyay waxay dhahdeen ma taha aan wiilkaada waliga xoogay shalanay uu ogeed biri ani uu ma ogeeday tiray aan waxay ninkaas xiriir nagama dhaxeen man aqaan meel oo dagay ma aqaan gurigiisna ma aqaan maadaama asaga oo watay oo aabiis oo yahay iska dhaafaadha dida waayahay iska dhahdo waxay u soo xigtay gaarkayga waa la dilay xaniyihiisana waa tabcaan asagana waa tabcaan isbitaal ku jira markaas waxa dhahay haliito wiilkayga waa rawaaya waxa dhahay waa arka hooya waxa dhahay wiilku jirniyaha isbitaal u jira man arkis sidaas iskaga dhaaf maxkamadda maxaa u timid maxaa codsanay maxkamadda waxa codsanay wiilkayga inuu cadaalad u helo dibna liu soo celsho gaarkay noloshiisa u baahanaa ma santa iska fariis ku xigeenka xiraliyaha guud ee ciidamada xiraliye kabtan Cabdicasiis Cusmaan Faarax ayaa maxkamadda ka codsaday in ciidanka laga saaro eedeysanaha koowaad Mustafa Cusmaan halka eedeysanaha labaad Sahra Cali Maxamedna lagu xukumo xabsi dheer iyo magta dhaawaca wiilka gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh eedeysanaashan waxaan ku soo eedeynay 430 oo sheegaya ku xadgudubka waajibaadka qoysnimo qoysku waxa asal ah oo xil ka saaran yahay in ay daryeelaan caruurta gurigooda ku nool caruurta dariska caruurta ku dul nool oo xataa aysan ayaga dhalin marka ma ku xadgudbeen waxaan goobtaan keenay kuwii ayaga ka soo go'ay mid kamida uu dhalay qaabka daryeel xumada ah dhibaatada ah ee jirdilka ah ee bahalnimada ah ee duudkiisa loo garaacay ushaas uusan xamili karin gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh marka waxa ka dareemaysaa qodobkaas in ay ku dhaceen lambar 2 xilliga la tumaayo diinteena wayna sheegtay nabiga sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa ku sugnaatay oo wuxuuna leeyahay 7 sano ugu horeyso ciyaalka in madax loo salaaxo wanaaga la tuso qaabka wanaagsan iyo qaabka loo tacaamulo dadka la tuso afka xun laga ilaaliyo baarinimada la tuso waxyaabaha soo dhan ay ku xuseen 7 kalena waa edbintaad xataa ma ahan in sida hadda bahalnimada ka baxsan in loo tumaahane waa xawaayay garaacitaanka la sheegayo ushaama garaacitaanka la sheegayo waxaan daqarka ma garaacitaanka la sheegayo ma in heer dhiig lagu shubo inuu gaaro ma macna garaacitaanka la sheegayo waa edbin oo salaada lagu edbaayo soonka lagu edbaayo la tababarayo 7 kalena waxa waaye waa mid canaanta oo cunugii la tusaa inuu mas'uul yahay saasa loo kala qaaday marka qaabkii dhan oo waajibaadka qoysnimada waaba ka baxeenba waxa saarnaayo dhan waa ka baxeen waa xadgudub ay u geysanayaan caruurtii ay dhaleen way kuma baalka ma kii ay si ka soo baxay waxaas la si yaab ee gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh Mustafa Abdullah inuu booliis yahay laguna abaabiyay loona meersho oo maalin walba loogu aqriyo iskool booliisi ilaalinta nafta iyo maalka waa loo meershaa mar walba asa markuu oo ku jiro feelku ku jiro ilaalinta booliisku waxa loogu talagalay ilaalinta nafta iyo maalka saa dhig jiray laakiin bedelkeed muxuu sameeyay cunugiisa halis galay kooma u galay heer dhaqaatiirta ka deeriyaan u galay heer uu halistaas xadgudubka jariimada ee waliba asigu u geysto qaraalka leeyahay oo galay marka waa wax ka baxsan booliisnimada wax ka baxsan nin naf ilaalinayo gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh qodobka 431 oo xeerka ciqaab Soomaaliyeed wuxuu leeyahay asagana si xun oo macaamilka caruurta ka hadlaa si xun oo macaamilka caruurta ma dhacday saan waa bilaadimka xumo macaamil ma ahan edbin ma sixitaan ma maanta hadda meeshan waxa la soo istaageen caani siinaysa ma hano badari siinaysa ma hano waxa cunay dhaysa ma hano biyo la siyahay ma hano had biyo diiday cunuguna dhargan la yaaba waa caruur ma yaqaan waa ina ka dhaaftaa asaadan soo baahan asa si ku dhahay
وأنا عندنا ساعة كبعد كده إذا وقابك معناها لو كري وعيال ما أهن لكن أب دوت كان وقال ما ديقل أنك ورد ما نقول مي مركا ما أهن عانها عاني دوت كوبكي ماذا عاني سان لو تما تقلب وحيابها الله يابك له ماشي عك بقى لنا واي من قدوم يقصنا محكمة شرفت له معامل سعتانك بنتنا قاب كاس ماهن أفرتيس ديدات وحواي ضيعات قفير والماء أما كرتلاوة سدح جروح وكل أوجي أمره كرتلاوة واي إلهها كطلوا إلى صلاة دي صونك وحصو دن وحو قلعة لو الدماء صغير آخر جنة وقلا حتى سان قلت قفك مرك إلهي وكل حساب تما صونك الصلاة دي واجباتك الرجال قوامون على النساء الله وحصونا يقصوا أرورين أو جورسري أو إلهي ودول صاري حدا نديس أيا قاب كاسحن ولا معاملة من قدامي marka intaasoo dhan ee dhaceen waxyaabaha la yaab kale waxa waaye mid gudoomiyay 450 ayaa dhacday xitaa caawimo uma fidin meeshaan sahar wixii ka cadeysay in HB-giis uu yaraa hooyo waay 8 cunuga dhashay wixii awoodi weysay in xataa inta isbitaal geyso ay u soo gadalay mobilmo inay bakaare ta tagtay cambi u soo gaday ay siiso si uu dhigiis waxay u soo laabto inuu dhintay ugu talagashay marka isku day dilay sameeyeen qoyskan marka warka dhan la soo koobo mid gudoomiyay cunugaas yariiska ilaahay xaqiisu ka nool yahay ilaahay tiis aan dhamaan maane halka waxa loogu talagalay in uu dhinto oo la dilo wayna dileen dilkaas dhibaatada oo kasha ay kamid tahay oo suunka ay kamid tahay oo ay kamid tahay karbaashka aragtay oo dhan ku dhacay marka mid gudoomiye waxaan codsaneynaa arrimaha soo socda waxaan codsaneynaa in eedeysanaha koowaad laga saaro booliiska Soomaaliyeed maxaa yeelay booliis uma qalmo nin qoyskiisa saas u galay nin cunugiisa saas u garaacay nin cunugiisa duudkiisa fiiqfiiqay waxaan codsaneynaa booliiska qoyska markuu ilaaliyo sida dad aan sharaxay waa inuu xaafadda ilaaliyo waa inuu nafti iyo maalka ilaaliyo nafti oo saan u gala marka nin nafsaan u galaayo uma qalma RTT uma qalma booliiska Soomaaliyeed waxaan codsaneynaa horta ciidanka booliiska Soomaaliyeed number 1 inay ka saaraan number 2 waxaan ka codsaneynaa in ay xadaanada ama koritaanka cunuga laga wareejiyo maadaama mas'uuliyadiisa uu dayacay mas'uuliyadii aabanimo uu dayacay mas'uuliyadii qoysnimo uu dayacay mas'uuliyadii ilaahay uu saaray uu dayacay booliiska Soomaaliyeedna hadda ay gacanta ku hayaan daryeelayaan inta daryeelkaas u soconay booliiska ay hayaan kadibna maxkamadda ay ku wareejiso cidii uu aragto in xadaanada cunugaas ay sii hayn karto sida eedadiis oo meeshaan ka sharaxday qaabka ay u hayn jirtay iyo farxiyo Cabdulla Cusmaan inay ku wareejiso number 3 waxaan codsaneynaa maxkamadda sharafta aan ka codsaneynaa in eedeysanaha koowaad qodobadii aan ku soo eedeynay boomi aan looga dhimin maadaama uu noqday aabba gudan waayay waajibaadkii qoysnimo maadaama uu noqday booliis gudan waayay oo arxalaawaya oo saas dadku u leeyahay oo cunugiisii saas u dilay marka booliiskana ka saarto cunugana ka wareejiso maadaama uu waajibaadkii aabbanimo uu gudan waayay midda saddexaadna waxa waaye aan codsaneyno in ku xukunto qodobada aan ku soo eedeynay waliba qodobka ugu adag iyo xabsiyada ugu adag inay ku xukunto si aysan ugu noqoto tusaale aabbaha xun ee saan aad ula macaamila cunugiisa iyo caruurtiisa iyo qoyskiisa number 2 eedeysanada labaad hooyo 8 cunug dhashay oo cunugaas yariiskaana qaabkaas u dishay waay iyada ilaahay ba xadaanada ma dul saarin maxaa yeelay qofkii dhalay oo aabbaha ah iyo hooyadiisa ka dhaxaysa waxaan codsaneynaa iyadana qodobadii aan ku soo eedeynay xabsiga ugu adag inay ku xukunto sidoo kalena ay saarto dhaawaca dhibkaas gaaray dhaawacii gaaray ay qiraalka la tahay inay iyadana ku xukunto maxkamadda waa maasantahay qareenka eedeysana Mustafa Abukaate Salaad Maxamed Cali ayaa dalbaday in loo yeero dhakhtarka caruurta baaris dheer ahna la sameeyo dhacdadii la soo gudbiyay meeshan waa dhacdo taabaneedo horta qof kasto oo waalid ah balse markay timaado kiis noocan oo kala ah oo dhax maray qoys isla joogo oo wada nool wax isugu darsan yihiin ugu horeen waxay kamid tahay waa kiisaska loo yaqaano domestic violence or waxaa la dhahaa family issue arrimo qoys waay arrimaha qoys badanaa waxaa lagu galaa qaab ka xiran dadweynaha ayadoo la ilaalinayo
jiritaanka iyo wada noolaanshiyaha qoyska. middaas horta waxay ahayd in dacwadda mudnaan gaara laga siiyo. midda labaad, haddaan u soo gudbo eedaha kala duwan ee loo soo jeediyey eedaysana aan qareen ku ahay Mustaf, waa dhegaysanay hadallada kala duwan ay jeediyeen eedaysanaha markhaatiyaasha, hadallada kala duwan ay jeediyeen xafiiska xeerraaliyaha, baaraha kiiska iyo markhaatiyada. nuxurka guud haddii dib loogu noqdo, waxaa u malaysaa xafiiska u xil saaran ilaalinta xeerka in eediisa iyo baaristiisa keliya oo ku koobay dhinac ka mida dhinacyadii dacwadaha, isagoo aad iyo aad maaragtay ugu dheeraaday soo gudbinta iyo kasbashada ama maaragtay hadal ziyaadinta oo kale, halkii ay ahayd in xafiiska isagoo u dhaxeeyo dhinacaha dacwadda waalidka dhibkan geystay iyo wiilka yar in uu sameeyo xaalad oo qoysnimo oo loo kuurgalo waxyaabaha keeni karo in dhibaato intaas la eg wiil yar oo maaragtay qoyskiisa ka soo gaaro. taas ayadana waxa waaye maxkamadda taas waxa waaye inay nooga garaabto. midda kale waxay tahay mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh, kiiskan sidiisa banaanba wuxuu ku saabsan yahay physical abuse, child neglected parent, wiil ay dayaceen ama canug ay dayaceen waalidkiisa. dhaawaca hadda noo muuqdo waxaa wax ka sheegi karo oo maxkamadda u bayaani karo khabiir caafimaad. waxaa u malaysaa markii la wareysanayey gabadha sarkaaladda ah in ay u hadlaysay, markii dhacdada ka warbixi la dhahay in ay u hadlaysay qaf neersin oo kale ah. sidoo kale baarayaasha iyo maragalka markaa fiirido dhammaantood waxay focuska saarayeen the injury, dhaawac sidiisa banaanba waxaa gungaar ka sameeyo oo natiijo baariseed ka soo saaro takhtar caruur. waa codsanay maxkamadda takhtar caruur oo loo geeyo wiilkan oo tilmaamayo noocyada kala duwan ee dhaawacyada ku dhacay. hadalka aan ka kala qornay baarayaasha kiiska, sarkaalka boolis ee maaragta ku soo dhacay riboodka, maragyada, dhammaantood qofba si ayuu u tibinayaa dhacdada. waxaa ilaa iyo hadda aanan faham buuxo aanan ka helin dhacdada ugu weyn halkay isugu soo biyo shubanayso. mar waxaa la yidhi wiilka waxaa ka mid a dhaawacyada loo geystay in la hafiyey oo biyo lagu hafiyey. su-aalo xiran ayaan weydiinay dhinacyada kala duwanaay, mid kasta wuxuu ku jawaabay si kala duwan. waxaa ka mid ah tusaale ahaan qof ku jawaabay baf ama patient in wiilka yar biyo badan madaxa loogu geliyey si uu u aqbalo waxa la faraayo oo ah siinta cunnada. mid kale su-aal aan weydiinay waxaa ka mid ahayd nooca biyaha ama xaddiga biyaha lagu hafiyey. wuxuu ka bixiyey jawaab kale oo ka duwan jawaabtii markhaatigii hore oo ah in wiilka yar keliya lagu hafiyey koob galaas biyaha oo ku jiro. sarkaaladda warbixinta soo gaartay iyana si kale ayay u hadashay. intaas horta waxaan dhihi karnaa waa isku aadanaan la'aanta tabinta dhacdada waxay u baahan tahay inay tahay mid iswaafaqsan kana dhalan karto eedda xeer raalinta. mudan guddoomiye maxkamadda sharafta leh, mar kale iyo mar kale waa ka xunnahay waxyaabaha hadda maaragtay muuqaal ahaan aan u aragnay, inkastoo aan ka jecleen in maxkamadda ay xogta saxda ah ay ka qaadato cidda ay mas-uuliyaddeeda tahay oo ah takhtarka carruurta. ma ahan xogta la soo gudbinayo in ay sharaxaan ama ay muujiyaan ama ay maaragtay aad u buunbuuniyaan cidaan aqoonteeda u lahayn. takhtarka carruurka waa la yaqaanaa. maxkamadda waxay leedahay maaragtay isbitaal guud oo la geeyo dhaawacyada, ha ahaadaan kuwa yaryar oo ilmaha ah iyo kuwa kale. waxay ahayd takhtar inta la keeno annagana aan ka gudanno su-aalihii xaqa aan u lahayn si aan u ogaano dhaawacyadaas hadda nala tusay inay ku yimaadeen garaacis, inay ku yimaadeen
waxyaabo kale ilmaha yararka waxay ku jiraan waqtigii barbaarintii ku jiraan annaga hadda waa ka wada xunnahay waxa meesha hadda nala ka tusay laakiin waxaan ka sii jecleen in takhtar ama qabiir caafimaad oo shaqo ku leh inuu noo sharxo the gravity of offense xaddiga xadgudubka ama the extent of injury xaddiga dhaawaca oo dhaho hadda waxaan aragnay duud wiil yar ah oo aad iyo aad u maleedid in oo biyo ku gubto kale markii muuqaal ahaan la fiiriyo in maaragtay wax kale ay gaareen waxa ay takhtar faahfaahinay oo dhaho dhaawaca noocan waxa loo yaqaanaa ulu ku yimaadaa ama wuxuu ku yimaadaa waxyaabo kale oo seasonal ah sida hadda xilliga canuga maaragtay oo la degan yahay waalidkiisa waa xilliyada kuleelaha kale waxaa dhici karo waxyaabo maaragtay oo allergical ah oo haddii qofka wax yar loo geysto allergigaas oo sababi karo dhibaato weyn marka waxay ahayd inaan warbixinta saxda ah oo nala wadaago takhtarka caruurta isagaa takhasus u leh ruqsadna u haysto marka maxkamadda sharafta leh waxaan ku soo gebagabeynayaa hadalkayga dhaawacaas eedaas ka timid dhaawaca oo geysta eedaysanaha aan qareen ku ahay waxay ahayd maxkamadda sharafta leh in ay ka gun gaarto iyadoo lagu qasbaayo xafiiska xeer ilaaliyaha guud inuu soo gudbiyo qabiir caafimaad markii la dhageystana annaga qareenadeenna difaacayaasha ah aan ka gudanno su-aalihii xiraa si xaaladda hadda naloola wadaagay sawir ka duwan noogu soo baxo maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in kiiskan waxyeeladii ka timid si gaar ah ayada ugu kuurgasho su-aalo qaasana la weydiiyo muuqaaladan hadda la soo bandhigay cidda aqoonta u leh taqaadiirta dhaawacyada in la weydiiyo haddii sidaa loo sharxay ay noqoto wax dooda aan ka qabno ma lahan dhammaanteen waxaan ka wada xunnahay in oo la dayaco ama la lumiyo ama maaragtay dhibaato loo geysto ilmo yaryar sababtoo ah waddankan wuxuu leeyahay shuruuc shareecada islaamka u weyn tahay iyo qaanuuno kala duwan oo maadi ah oo u weyn yahay qaanuunka caalamiga ah ee Soomaaliya qaybta ka tahay ee la yiraahdo sharciga ilaalinayo xuquuqda caruurta child rights si jamaca arintaas waa uga xunnahay balse waxaan ka codsanaynaa maxkamadda inaanan maaragtay inta hadda la soo gudbiyay kaliya ee ku dhisin go'aankeeda oo si qaasa qolkeeda tashiga ay ugu yeerato takhtarka aan ilaa iyo hadda soo gudbin warbixinta caafimaad ee muhiimka u ah kiiskan maxkamaddu way maadsantahay sidoo kalena qareenkeeda sana Sahra Abukaate Xanaan Xaasha Cali ayaa dhankeeda codsatay in muwakiladeeda aysan ahayn gacanta koowaad ee dambiga sidaas darteedna loo fiiriyo sifaalaha dambiga fudeeya mudane gudoomiye mudane garsoore Sahra waa hooyo Soomaaliyeed waa hooyo barbaarisay korisay xanaaneysay ubad gaaray ilaa 8 oo qaarkood yihiin qaangaaro isla markaana guur gaaray mudane gudoomiye mudane garsoore Sahro rikoor ahaan dambi haddii aan eegno ma jiro rikoor dambi oo ay xafiiska xeerlaalintu ay soo gudbiyeen ama inay horey uga xadgudubtay sharciga waxay ahayd muwaadinad doorta isla markaana hoggaansanta nidaamka iyo qaanuunka dalka yaalo mudane gudoomiye mudane garsoore markaan aado difaaciga ku saabsan eedda loo jeediyay Sahra ee qodobada kala duwan ah xafiiska xeerlaaliyaha waxa uu soo gudbiyay mudane gudoomiye mudane garsoore eedda uu soo gudbiyay mudane gudoomiye mudane garsooreyaal waxay khilaafsan tahay habraaci iyo halbeegyadii sharcigu uu tilmaamay inuu xeerlaaliyuhu ku gidaamo eediisa marka aan saas leeyahay mudane gudoomiye mudane garsooreyaal eedeysanayaashu waa laba eedeysane sida uu jideenayo mudane gudoomiye mudane garsooreyaal qodobka 71 farqadiisa 2 xarafkiisa B ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay bayaaminayaan qodobkaasi marka eedeysanayaashu ay badan yihiin ama hal qof ay ka badan yihiin waa in lagu cadeeyaa eedda mid kasta oo kamid ah eedeysanayaashaasi doorka iyo mas'uuliyadda uu ku leeyahay faldambiyeedkaasi dhacay mudane gudoomiye mudane garsoore
faldambiyeedyada inay ku xadgudbeen eedeysanayaasha lagu eedeeyey waa ay badan yihiin doorar kala duwan ayayna leeyihiin mas-uuliyado kala duwanna way ka dhalanayaan mudane gudoomiye mudane garsoore si aan u difaaco oo aan iraahdo muwakiilada ayda aan qareenka u ahay qodobadan sharci kuma ay xadgudbin ama doorkeeda halahaas uu ahaa xeer ilaaliyaha waxaa laga rabay in uu bayaamiyo isla markaana uu cadeeyo cid walba doorka mudane gudoomiye mudane garsooreyaal anagoo og xaaladda iyo waaqica aan ku jirno nin sargaala awood haysta sheegayna inuu u damqaday ubad yar oo la dhibaateynayo uuna arkay in uu awoodi karay in uu albaabka garaaco yiraahday hooyo ubadkan yarsaan ha u canaanan u nasteexeeyo badbaadiyana ubadkaas yar muusan samaynin tilaabadaasna ma uusan qaadin wuxuu kaloo awood u lahaa maadaama uu sargaal yahay in uu yiraahdo xadgudubkan aad samaynayso waa qalad laamaha ammaankana uu u keeno ubadkana markaas uu ka joojiyo waxyeelada taa cagsigeeda wuxuu sameeyey arrin aan dhihi karno waa intention u baahnaa ama wuxuu u baahnaa dareen ku saabsan in uu yiraahdo muuqaalkaanaa jiray si miidiya ay baraha bulshada loo geeyo sababtoo ah in muuqaal la duubo saldhigga la geeyo ee la yiraahdo muuqaalkaan ahayna muuqaalku cadeen waa sax inuu cadeen ka reebo qofkan xaaladu ku jiro way wanaagsantaa laakiin in saldhigga la geeyo la yiraahdo muuqaalkaana la duubay dhibkaasana halkaas ka jiro ubadka yaraa kaalmo muusan helin waxaa laga yaabi lahaa xitaa even haddii warbixintay sheegayaan ama xaaladda ku sugnaa ubadkaas ay leeyihiin waa lagu samaynayay inuu ubadkaas dhintaba inta saldhigga la aadayo ilaan waa ognahay qof la leeyahay si arxan dara uu qof kaleeto u waxyeeleynayay waqti la siiyo xaalad walba ayuu geli karaa qofkaasi waxay ahayd inuu sameeyo gurma degdeg ah si markaasi dareenku uu maxkamadda hadda ka hor muujiyay ee ahayd inuu ka xumaaday xaaladda ubadkaasi ku jiray inuu waqti xaadirkaas sameeyo sidaas darteed mudane gudoomiye mudane garsoore qodobka 440 farqadiisa labaad anoo maxkamadda waqtiga u soo koobaya haddii aan ka hadlo waxaa lagu eedeeyay dhaawac culus dhaawacaas culus waxay ahayd in sargaal caafimaad uu soo cadeeyo xeer ilaaliyuhu aragtidiisa asiga may ula muuqatay in dhaawac culus uu jiro dhaawacaas culus wuxuu ka hadlaa qofku xubin inuu waayo ka mid ah ama xubintiisu ay noqoto dareen la'aan ma caddo lamana horkeenin maxkamadda xadidaadda dhaawacaasi iyo qodob sharciyo ka hadlaya haddaan u soo laabto qodobka u dambeeya 434 la aqriyo 17 wuxuu ka hadlayaa isku day dil mudane gudoomiye mudane garsoore xeer ilaaliyuhu wuxuu aadaasi ku saleeyay ama cadeen ahaan uga dhigay in hooyadaasi ay biyo ku qarqi rabtay ubadkaas yar waxaa laga rabay inuu cadeyntaas keeno cidii bixisay ama cidii aragtay maadaama guri ay arrintaas ka dhex dhacday sargaalkii la keenay ay duubay muuqaalka wuxuu sheegay in biyo ay ka marmarinaysa dhabarka xaalad qandhi inuu ku jiraa laga yaabaa ay biyahaasi dhabarka marmarinaysay ama xaalad kaleeto uu jiray galaasii biyo ku siinayso yiraahdeen ubadka yaryar haddii ay xanuunsan yihiin bahal inuu qabo inuu maxaa la yiraahdaa xanuuno kala qaba laga sheegay maxdarka dacwadda ubad xanuunsan dareen iyo aragti uu cunto ku dalbado ama cunto arba uu yiraahdo ma lahan taa cagsigeeda waalidku way ku qasbaan way ku celceliyaan ayagoo isle ubadkaasi cunto calooshooda gasho dhammaan maragyadu waxay sheegeen in ubadkaasi cunto ama caano hooyadaasi ugu qasbaysay maxaa keeni kara ama dareen noocee ah ayay dhalan kartaa mudane gudoomiye mudane garsoore haddii eedeysanada aan qareenka u ahay ay rabto ubadkaas yar inay disho ama ka taqallusto ama qodobka 434 ee lagu soo eedeeyay isku daydil ah maxay cunto ugu qasbaysay maxay cuntada cunug u qaylinaysay maxay juhdiga intaas leeg ugu bixinaysay sababo badan iyo duruufo badan oo ku gadaaman oo aan ognahay inay qof dili karaan ayaa jiray taas cagsigeeda mudane gudoomiye mudane garsoore ma sameeynin hooyay ahayd ubadkii cunto ayay siinaysay cuntadiisi oo u cuna maadaama xaalad caafimaad ku jira ayay ku canaananaysay qodobka 434 mudane gudoomiye lala aqriyo 17 wuxuu leeyahay tiirar iyo elementiyo xeer ilaaliyuhu waxa laga rabay markuu qofku eedeynayo in uu tiirarkaasi ma buuxiyo qodobkaani ma lagu dabaqi karaa xaaladan taagan inuu u fiiriyo laakiin taas cagsigeeda muusan sameeynin maxkamadduna kama uusan sharxin si ay u buuxiso tiirarkaasi mudane gudoomiye mudane garsooreyaal 434 la aqriyo 17 waa inaysan dhalanin natiijo laakiin qofkii u diyaar garoobay xaaladahaas oo idil dhaawac ayaa jira haddaan u laabto qodobada 431 ayay waxaa ka hadlayaan ababin ama toosin ubad oo xad dhaaf ah xad dhaafkii waxaa ka dhashay ababintaas ama toosintaas ahayd qodobka 440 waxaa la yiraahday ubadkaasi waa la dhaawacay dib ayaa loo geystay dhaawac maadaama uu jiro uu dhashay natiijo 434 natiijo noocee ayaa ka imaan karta mudane gudoomiye mudane garsoore natiijo
in ay dhalato qodobkaasi isku day markuu yahay ma ka hadlayso waxay ka hadlaysaa qofkii inuu shuruudihii soo buuxiyay laakiin natiijadii laga baaqsaday maxkamaddu muusan la wadaagin biyihii la gelinayay noocay ahaayeen iyo meeshii ay joogeen iyo xaaladday ahaayeen mudane guddoomiye mudane garsoorayaal annagoo og in ubadku barbaarintooda iyo edbintoodaba ay canaanta xitaa marka laga soo tago hooyooyinka macallimiinta dugsiga intana soo garaacana waxaa la dhihi jiray waxbuu ku barayaa macallinka ababina kuu sameynaya wax baro aad waa xaalad annaga dhan aan maxaa la yidhahdaa ka ognahay bilaadanimada in la ilaaliyana ma ka sii jirto oo waa muhiim ubadkuna waa lafdhabarta bulshada oo dastuurkeena iyo dhammaan sharciyada priority ay siinayaan taana aragtida waa qabaa mudane guddoomiye mudane garsoore laakiin iyada oo lagu soo hoos gelinayo ama lagu dhahayo ababintii ubadkaasi loo sameynayay ayaa mas-uuliyaddan ka dhalatay mudane guddoomiye mudane garsooreyaal haddii aabbo walba iyo hooyo walba ubad canaanta maxkamadda lasoo hor istaagay la dhihi lahay mas-uuliyaddaas ababinta maadaama aad canaanateen ubadkaan yar sidee noqon lahaayeen waaqiciga iyo bulshada aan ku loon lahay ilmaha soomaaliyeed ee jooga ama xaaladooda siday ahaan lahayd annagoo og ayadoo ubadkii la canaananayo hooyihii aabuur darfa ay ku dhigan yihiin in ubadkeennii haddana aysan joogin booskii loogu talagalay ama booskii ay ahayd inay joogaan ilmaha adduunka ma joogaan mudane guddoomiye mudane garsoorayaal qodobadaas oo idil iyo cadeemahaas oo idil waxay xoojinayaan qodobkii 71 oo hadaayaan ku sharaxay in uu jiro dambile asal ah iyo mid maxaa la yiraahdaa ka qayb qaata ka qayb qaadashada wakiiladeeda wali wala ma cadeynin haddii aan u guda galo gabagabadeyda mudane guddoomiye mudane garsoorayaal cadeyn la'aantu waqti walba waxay keenaysaa in uu eedeysanaha yahay beri ama bilaa dambi ilaa looga cadeeyo si aanan shaki iyo mugdi ku jirin xeelaaliyuu wuu dadaalay cadeymo marag muujina uu soo gudbiyay laakiin waxa looga baahnaa inuu isku xiro cadeymaha iyo marag muujinada uu soo gudbinayo eedeysanahan sidee lid uga yihiin dambigu geysto waa noocee xad intee loo ogu leeyahay sidoo kale tood cadeyntan maxay ka turjumaysaa isku xir cadeyn oo ka hadlaysa in saharo ay sameysay arintaasi ma jirto waxa jiro kala mudane guddoomiye mudane garsoore qaacido aslul bariyi dambi la walba ama qof kasto dambi lagu eedeeyay inuu bari yahay ilaa laga cadeeyo sidoo kale mudane guddoomiye mudane garsoorayaal qodobka 35aad farqadiisa koobaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka wuxuu dhigayaa inuu eedeysanaha la mid yahay dambi laabe ilaa ay maxkamad si kama dambaysa uga cadeyso mas'uuliyadda dambigaas uu leeyahay sidoo kale qodobka 13aad farqadiisa labaad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu tilmaamayaa eedeysanaha inuu dambi laabe yahay asigana ama loo qaadanayo ilaa laga cadeeyo mas'uuliyadda dambigaas uu leeyahay mudane guddoomiye mudane garsoorayaal ma jiro qiraal maxkamadeed ay maxkamadda ama maxdarka dacwaddu ka sameysay eedeysanad sahra sidoo kale ma jiro qiraal maxkamadeed oo maxkamadda lala wadaagay isla markaana waafaqsan qodobka 69 iyo 149 mudane guddoomiye qiraalka iyo ogolaanshuhu way kala duwan yihiin qodobka 147 wuxuu ka hadlayaa ogolaansho dambi sharcigu qodob walba oo kamid ah wuxuu jideeyaa nidaamiyana xaalad ay tahay la dabaqo qodobka aan iraade 149 la aqriyo 68 wuxuu ka hadlaa qiraal eedeysanuhu uu ku qiranayo leeyahay anigoo hebel ah waxaan qirayaa in aan dambiga noocaasi geystay waxa ka duwan ogolaansho 147 tilmaamayo warbixin ayuu qofku bixin karaa xaaladana ayaa jirto saani ahayd warqadda qiraalku ku sheegaya xeer ilaaliyuhu 147 waafaqsan tahay waa ogolaansho ama warbixin uu bixinayo qofkan uu xaaladii ka turjumayo su'aalo jawaabay hay'amaya ku jire ha waraysiga kale taadii karna mudane guddoomiye mudane garsoore ilaan qofku markii qiraal uu bixina la leeyahay waa inuu warbixin kooban iyadoo aan la qasbin shuruudihii la ilaalinayo garsoore laga hor sameeyay in laga sheego garsoore laga hor sameeyay ma dhahay aniga sameynta garsoore iyo beeninta anigoon aadin laakiin qodobada sharci markii la dabaqayo warbixinta xeer ilaaliyuhu ka hor aqriyo maxkamadda 147 ay aadaysaa mudane guddoomiye mudane garsoore oo waa warbixin ay leedahay ilmaha waa xanaaneynay caana siinay aabahooda joogay aabuhu uu leeyahay saldhiga ayaan tagay waxaana ka sheegay in ubadkan aniga aan canaananayo aniga aan dhalay warbixintaas idil waa ogolaansho mudane guddoomiye mudane garsooreyaal ee lama dhihi karo waa qiraal si go'aan maxkamaddu ay ugu dhisto ayadoo la waafajinayo 68 arrimahaasoo idil ayadoo jirta mudane guddoomiye mudane garsooreyaal haddii aan soo aado gabagabada kiiskayga si waafaqsan qodobka 119 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed eed walba waxaa saldhig u ah isla markaana lagu celiyaa
hadba culayska cadaynta loo haayo iyo xaaladda iyo dhacdooyinka ku gadaaman sidoo jideynaya qodobka 163 iyo qodobka 110aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed mudane gudoomiye mudane garsoore qodobada sharci ee gaaraya ilaa 7 mas'uuliyadooda xeer ilaaliyuhu wuxuu sheegay gabagabadiisa xitaa markan ku laabto mudane gudoomiye in sargaalkaas booliiska maadaama uu ku xadgudbay shaqadii uu haayay ilmihiisina uu dayacay ama uu sameeyay falkaanba in laga saaro ciidanka wuxuu attention-kaasi badan sameynaya mudane gudoomiye mudane garsoore uu si muujinaya in kiiska mas'uuliyadiisu uu leeyahay aaba gabadhana qaranku waxay ahayd in la cadeeyo ka qayb qaadashadeeda oo ahayd inaan la weydiiyaysan u fidin xaalad caafimaad ama aysan la wadaagin dawladda waxaana ku sheegay xaaladda iyo waaqaca bulshada inay ku jirto oo ah in ubad aaba iyo hooyo ay barbaarinayaan canaan loo geystay aysan laamaha ammaanka in la wadaago ama ay dambi tahay inaysan ogaan bulshadeena oo ay tahay waaqic aan la gaarin ama aragti aysan bulshadu inteeda badan haysanin mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanayaa in eedeysanada mas'uuliyadda ah in aysan sheegin ama aysan la wadaagin kaliya maadaama lagu koobay warbixintii oo la yiraahdo aanay siinaysay way xanaaneynaysay in ay maxkamadda u fiiriso sifaalaha dambiga qafiifiya isla markaana xorriyadeeda dib ugu celiso maxkamadda loo maadsantaa maxaa ku baxseen wax u jiraan maxaa dhacay maxaana dalbanay oo maxkamadda ka codsanay aniga waxaan maxkamadda ka dalbanaa inaan ahay aabba dhiban walaadiis dib loo geystay xorriyadiisa haysan shaqadii qaranka ugu hayay ka maqan aabba dhibanaan yaa ku dhibay ilmahayga dhibaato loo geystay yaa u geystay eedadooda adiga goorma ogaatay in dib loo geystay ilmahaaga aniga maalinkii lasoo wada saldhiggaan ku arkay dhibka dhacay saldhiggaan ku arkay cunugayga inuu saas dhibkaas weyn ugu qabo maxaa codsanay sana maxkamadda inay xorriyadeeda dib ii siiso oo dhibaatadii la ii geystana sharciga oo xaqiiga siiyo muuqaalada la soo bandhig waxaa iiga baxay in aniga asiga oo dhibka keystay oo markii oo la keenay saldhigkan oo cadeystay oonu guriga ka maqnayn oo ila joogo asiga dilay yaa dilay asiga dilay asaga yaa waa marka cunada siinay mudane garsoore oo imaado cunugka cun anoo qaato imaado waa isxanaajinay ninkan cun mawdiida ma saas u karbaashi yaa garaacay aabahood mana iga maqneen oo la joogo fasax ku jiro todobadaas bari fasax ku jiro oo la joogo aniguna waa la soo qabtay laamaha abnigu way soo qabteen wax oo ordo sameeyay malaha qof xanuunsanaan ahay sakoraa qaba waa ku qanada meesha cabiraa lee keenay cunuga yar yaa garaacay oo saas u galay aabihiisaa ka raacday uma qabayna aabihiis inuu cunugkiisa yar looga dacwo karo amba dambi uu ku galaayo qaylida yeeraysane mudane garsoore asigoo aamusan ushoo ku wada iska cunhe ka dhaaf ulaa xitaa intii igu daal markaa imaanay saldhig yaa kugu dhif anuu ka celinayo u dhacday gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdifataax khiyaar warbaahinta qaranka muqdisho